soo dhawaada mar kale akhyaarta nala socota meel kasta oo aad dunida ka joogtaan. Caawa magaalada Beijing waxaa ku wada hoyanaya madaxda hogaamiyaasha labada dal ee dunida ugu awoodda badan, madaxweyne Trump iyo madaxweyne Xi. kadib markii Trump maanta uu gaaray magaalada Beijing, waxyaabaha xiisaha leh waxaa ka mid ah dooda labadaasi wadan iyo hardanka ka dhaxeeya iyo waliba sida loo soo afmeeri karo. warbaahinta caalamkuna waxa ay falanqeynayaan dhinacyada kala duwan ee cadaadiska la iska saari doono. Trump waxa uu rabaa Iran inuu cadaadis ka saaro dhinaca Shiinaha, halka Shiinahana ay doonayso Mareykanka iyo Taiwan inay kala furto. waxyaabaha kale oo intaasi dheer waxaa ka mid ah doodaha ka taagan ganacsiga. Trump inta badan madaxda shirkadaha waaweyn ee dhinaca tiknoolajiyadda ayuu diyaaradiisa saartay, xitaa qaarkood maysan isku wanaagsanayn, laakiin doodo kala soo baxaya. arinta kale oo xiisaha leh waxaa ka mid ah oo indhaha lagu wada hayo in laga baqayo in la kala xado aqoonta, oo dadka qaar la leeyahay wafdiga Mareykanku intay Shiinaha joogaan dhaqdhaqaaqa dhinaca tiknoolajiyadda gaar ahaan isticmaalka kombiyuutarada iyo taleefanada smartphoneska waa la xadidi doonaa. sababta waxay tahay sida hantida aqooneed ee Mareykanka looga ilaaliyo Shiinaha, waana la kala baqayaa, waana la wada hoyanayaa. haddaba dunida maxaa ka dhacaya kulanka Xi iyo Trump u dhaxeeyana sidee loo macnayn karaa? doodaasi iyo kuwa kale oo fara badan oo waliba caawa aad dunida u haysata waxay la falanqeynaya saaxiibkay walaalkay Cabdi Iftiin oo jooga dalka Mareykanka oo si toos ah qadka ugu jira. Cabdi Iftiin oo soo dhawow. caawa Shiinaha indhaha lagu wada hayaa, Mareykanku maxay la shirtageen? بسم الله الرحمن الرحيم. برو شوي ولك عدين أد بعدين سلام يا وحرب أنا كوبلا وشكذا ترامب أنتو سفر كوكسي جري أو كوسع الشينها وحصل شعب حي أرينكا ميورت قبل كاليفورنيا أو قبل كلاباد وين دلك أمريكا إسلام دن أو ميور أو دغ مجالا أي محكمة الصوصار وحالي وحاجة جزء تاع الشينها أيضا أسكت الشينة كسوجيدا مركا dagaalka hoosooseega iyo isbasaasida labada dal waa laba dal oo aad u balaaran oo quwadda dunida dhan wal markaa ka fiiriso. taa kasoo waa labada suuq ee dunida maanta ugu balaaran markaa fiiriso qaabkay u dhoofiyaan iyo qaabka u soo dhoofsadaan. hase yeeshee labada suuq ayagana waa ay isku tiirsan yihiin. Shiinaha waxaa jiro qaybo ee uusan uga maarmin dalka Mareykankana waxaa jiro qaybo uusan uga maarmin Shiinaha. aan taabano laba qodob oo yar oo ku saabsan waxyaabaha Mareykanka uusan uga maarmin Shiinaha waa suuqa koowaad ee loo iibiyo ama loo suuq geeyo beeraha Mareykanka waxyaabaha ka soo baxo. tusaale ahaan galleyda iyo digirta. beeraleyda Mareykanka dhulkan sida ogtahay dunida wadan walba wuxuu ku tiirsan yahay beerahaas. horta waa suuqa koowaad ee loo suuq geeyo waay. haddii marka colaad ay labada dal ka dhex abuuranto dhanka dhibaatooyin fara badan imaanaya, waxaa laga yaabaa in shaqo la'aan iyo beerihii oo fariisto yani inay dhacdo. taas waa mid. dhanka kale waa tiknoolajiyada. horta dhankaas ugu xasaasisan oo labada dalba waxbaa la kala xadaa sida sheekada ku furtay oo xogta in la kala ilaalsado. Mareykanku wuxuu ilaalsanayaa in aan xogta mobilada, maadaama rag culus oo tiknoolajiyada kaalmaha koowaad laga dhihi karo dunida ee la socdaan ninka la yiraahdo Donald Trump. marka macno weyn ay sameynaysaa in mobilada la kala xareysto aan waxba la is ilaaliyo, yani maadaama Shiinaha iyo Mareykanka labadoodaba ay aad ugu takhasuseen xadida iyo koobiyeenta midba midka kale. waa wax la isku ogyahay waaye. horta wuxuu u muuqataa sida dhan walba markaa ka fiiriso guul dhanka ganacsiga iyo isku furnaanshaha suuqyada in ay Trump soo hooyi doono ayay dadka sii saadaalinayaan. dabcan waxyaabaha waxaa ka mid ah hadda Shiina tusaale Twitterka iyo Facebook hadda la baxay magaca Meta oo company weyn ah lagama isticmaalo, oo kambaniyada Mareykanka dhan tiknoolajiyada intooda badan waa laga xanibay oo lagama isticmaalo baraha bulshada markaa fiirso dalkaas iyo Shiinaha, maadaama Shiinaha asaga laftirkiisa uu yani uu hormuud u yahay dhanka tiknoolajiyada iyo baraha bulshada iyo waxyaaba la isticmaalo. marka waxay isku dayayaan in labada shacab suuqyada loo furo oo si xor ah wax loo kala ganacsado oo maraakiibta isgooshaan qudaarta iyo tiknoolajiyada waxyaabaas oo kale. taa waxay u muuqataa
mid dabcan dhici karto maadaama labada dalba ay danaynayaan. sheekada ugu dhibka badan waa taabatay mid horta waa Taiwan. aniga haddaa saadaaliyo ilma ahaa Taiwan in wax guul ah labada dhinac bay ka soo hoynayaan Cabdicasiisow. Mathalan dalka Taiwan Shiina dal uma aqoonsano oo wuxuu aqoonsan yahay in uu ka mid yahay dhulweynaha Shiinaha wax loo yaqaan mainland China. Taraamba iyo dowladda Mareykankana Taiwan dal ahaan uma aqoonsano. taas waxaa rabaa ummadda Soomaaliyeed inay fahanto oo Mareykanka uma diiwaan gashno in Taiwan uu yahay dal ma dhahan. waaya taa uu ku muujinayso Mareykanka in meel dhul uu la macaamilo oo dadyoogiisa iyo madaxdiisa ay aqoonsan yihiin laakiin dal ahaan aysan u aqoonsaneen inuu yahay. Taiwan shayga ugu weyn oo hadda yani xurgufta ay ka jirtaa waxay tahay Taiwan waxaa lagu sameeyaa inta badan taleefanada iPhone-ka ah oo Mareykanka uu soo saaro. dhulka ayaa lagu sameeyaa laborki waa raqiis sidoo kale maadooyinka loo yaqaan rare earth-ka ama mineralska dhulkaas laga helo naadirka aad iyo aad ayaa dhulkaas laga helaa. suuqyadaasna Mareykan ay u fureen Taiwan oo uma aysan furin Shiinaha. waa sababta horta Shiinaha uu u doonayo mar allaale marka noqotaba in dhulka quwad military uu kula wareego taasoo dabcan afar jibaari doonta dhaqaalaha Shiinaha iyo wax soo saarka Shiinaha. Mareykanka marka wax walba isku dayaa si qaab diblomaasiyadeed inuu arrinka bal u xaliyo Shiinahana dib u dag u dhaho oo sheekadan hadda sida ay taagan tahay dabcan Mareykan dan ugu jirtaa Shiinahana xanta suuq ugu jirtaa waxay tahay in abaabul ballaaran uu ku jiro maalin in duulaan military uu ku qaado. waaya taa meena ku dambaysa Cabdi oo arki doona qodobka kale aan rabo si bobsiiska ah ee ugu xiisaha badan oo aan isleeyahay falanqeyn doona waa sheekada Iran. imaanaya taas si gooni ah u dhiganaya Cabdiftinow. waxaan rabaa waxyaabo inta badan maanta dhacay oo marka hogaamiye weyn uu dal kala booqanayo kale waxa jira in laga shaqeeyo wax badan in security amniga laga shaqeeyo security in arrimihii diblomaasiyadda aad loo fiiriyo soo dhaweyntii oo kale in si heer sare loo qaado counterpartka ama nadiirka waxa la yiraahdo hogaamiye u dhigmo kale inuu soo dhaweeyo. wad ogeyd markii Putin uu imaanaya Mareykanka sida loo soo dhaweeyo waliba Trump inuu 30 daqiiqo ka hor maray oo diyaaradda ku sugay oo hal mar labadii albaab oo diyaaradaha la furay oo la isku soo socda oo si weyn looga sheekaynayo waliba falanqeyn leh. ninkan Trump la yiraahdo dhinacana booqashadiisa aad loo weyneeyay oo la yaab bay ahayd. dhinaca kalena aad loo yareeyay oo madaxweynihii Xi meesha soo ma istaagin. bal arintaana tooshka ku shid sida u macnayn karnaa waliba marka dal Soomaaliya kale oo diblomaasiyadda baranaya oo jiilkiisa cusub aan dawladnimada wax badan ka aqoon ay arrimahan oo kale falanqeynayaan. waxay u muuqataa Shiinaha in uu leeyahay xeer u dhigan markii madaxda ay booqanayaan Beijing. xeerkaas oo ah in madaxweyne Xi ama madaxda qofka ugu sareeyo inuusan airportka ugu hortagin madaxa kale ee soo degayo ee loo diro wafdi hoosoosay ah oo dawladda ka tirsan. marka hadda ka hor mar waxaa jirto uu tegay Putin sidii oo kale ayaa la sameeyay dabcan waa wada aragnay muuqaaladii oo in la soo wado madaxda airportka laga soo wado ayagu waxay u arkaan nidaam sharafeed ay u arkaan madaxda insaas loo soo dhaweeyo airportka la tago dhalinyar yar calanka dalkaas soo degayo iyo saf la galo maamuuska ayaga markaa fiirsada Shiinayska ah saasa waxay u arkaan qaab maamuuseed aad u wanaagsan oo qofka madaxa loo soo dhaweeyo. marka hoos u fiiriyay oo aan u daandegay uma muuqato in ay tahay wax yani uu madaxweyne Xi oo Shiinayska ay ku sameeyaan Donald Trump uusan ku sameeynin madaxda kale uma muuqato. marka ayaga xeer u dhigan waaye oo ah dal walba xeer u leeyahay nugta hada markii ninkii yiraahdo Putin uu yimid Mareykanka waa tii Alaska isku arkeen xitaa caasimadda dalka Mareykanka ma aysan ahayn. halkaas ayaa dabcan waxay kalifteen madaxweynihii kale Trump asagana halka uu aado airport ku soo dhaweeyo. waa runta maamuus aad u balaaran ayuu ahaa laakiin middan waxay u muuqataa mid normal ah oo Shiinaha dhankooda caadi ka ah. waayahay waxaan rabaa
waxyaabaha ugu weyn hadda waxaa ka mid ah Trump Shiinaha waxa uu tagayaa isagoon ilka badan lahayn oo xagga awoodda ah oo maxkamadaha ay Soomaalida hadalkeeda haddii aan ku fiirino garbaha ay ka dhigeen oo arrimaha canshuuraha aad looga xadiday oo Congress-ka ay leeyihiin wixii canshuuro la xiriira iyo sharciyada annaga iskale oo Trump hadda wixii ka dambeeya kuma dagaalami karo bal awoodiisa marka aad fiiriso Shiinaha uu la tagayo iyo Trump sida uu jeclaan lahaa iyo maxkamadaha sida uu galeen iyana si loo fasiraya gudaha Mareykanka aad iyo aad meel fiican baad ka abaartay wuxuu muuqataa Donald Trump inuusan lahayn awood fara badan marbuu isku dayay in dal walbaba uu ku soo rogo canshuur wax loo yaqaan taarifka Shiinaha oo kamid ahaa Canada ay kamid ahayd midowga Europe dhamaan dalka NATO balse Congress-kii uu ka daba yimid oo la tusay madaxweynaha inuusan awoodo shakhsiyadeed uusan lahayn uu saas uu ku sameyn karo marka saas ay tahay se waxaa xusid mudan in dalkan Mareykanka labadii xisbi ee ugu tirada badan dimuqraadi iyo jamhuuri Shiinaha ay u arkaan dalka koowaad ee xifaaltanka kula jira dalka Mareykanka dhan walbaba marka ilama aha madaxweyne Xi in uu arrinkan u arki doono in Trump uusan awood lahayn oo Congress-kii uu ka awood badiyay oo Xi wuxuu u arkaa Mareykanka guud ahaan xisbiyadooda siyaasadeed ama dimuqraadi ha noqdo ama jamhuuri ha noqdo ama Trump ha noqdo ama Obama ha noqdo in loo wajaho qaab caqliyeysan oo farsamaysan hadda markaa fiiriso Shiinaha dhan walbaba ka fiiriso waxay u muuqataa qaabka ay wax u wadaan in ama sida sheegtay Cabdicasiis oo hadda sida wax u socdaanba Mareykanka uu sii daciifayo oo maanta xaalka meesha uu joogo military ahaan iyo dhaqaale ahaan markaa fiiriso Shiinaha asaga inay dan ugu jirto in saaxiibtinimadan la dhihi karo gadaal hore la iska salaama gacmihi laakiin gadaal mindiya la isku taagayaa waa sida Mareykanka iyo Shiinaha iyo Ruushka weligood bay ahaayeen dalkan waaweyn oo maaragtay dhaqaalaha dunida ku xifaaltamay laakiin haddana maadaama labada dal hadde ay yihiin dalalka ugu shacbiyada badan dunida markii laga soo tago Hindi iyo wadamo kale Mareykanka iyo Shiinaha ay yihiin dalal aad u tiro badan aqoon isweydaarsiga ganacsiga iyo waxyaabahaas ay marka inta badan ka fiirinayaan oo marka waxaa isdhihi karaa waxaa dhagaha dadka Shiinayska iyo dadka Mareykanka la maqalsiin doonaa guulo dhanka dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo isweydaarsiga dhanka teknolojiyada iyo oo labada shacab ka farxin doonta laakiin marka loo yimaado dhanka militariga iyo diblomaasiyada iyo siyaasadda xifaaltanka meesha ay ku sii socon doonaan laga yaabo si inay ka sii dartaba sida muuqata arrimaha diblomaasiyadda waxa ugu weyn la isku haysto waxa kamid ah militariga sida la socotay heshiiskii xakamaynta nuclear-ka Ruushka iyo Mareykanka waa uu dhamaaday bishii February wali lama saxiixin Ruushka gantaalo tijaabinaya maanta wasaaradda gaashaandhigga Shiinaha waxay tilmaameen in gantaalahooda iyana ay aad u sii kordhayaan oo sii balaaranayaan xilli Mareykanka isla leeyahay hoos buu u sii socdaa gantaalihiisa dagaalka Iran waa ku dhig baxay aan ku keeno marka dhinaca Iran Mareykanka waxa uu Shiinaha tagayaa isagoo aan dagaalka Iran guula ka gaarin balse dhinaca kale leeyahay runtii dagaalkaas wuxuu u muuqdaa marka meesha uu maanta joogo iyo dawlad Mareykan oo kale ah Iran ay la gashay in loo fasiri karo Mareykanka dagaalkaas inuu ku jabay awoodiisa iyo natiijada marka la isku fiiriyo muxuu Shiinaha horgeyn doonaa arrinta Iran markaan si fiican u eegno wallahi waa sheekada ugu xiisaha badan uguna madax xanuunka badan Donald Trump markaa fiiriso booqashadiisa Shiinaha dabcan waxa iska cad in satellite-da Iran ay isticmaashay oo ay ku basaastay goobaha saldhigyada military ee Mareykanka ee bariga dhexe in satellite-daasi ay farsameeyeen Shiinayska ayna u tababareen Iraniyiinta oo teknolojiyada casriga Iran ay isticmaashay inteeda badan ay ka kaabeen ama ka caawiyeen Shiinayska taas anagoo wada og oo weliba la isdhihi karo qaab dadban ay Shiina uga guuleysatay Mareykanka military ahaan markaa fiiriso sida hadda wax u socdaan bariga dhexe marka waxaa la is oran karaa Trump waxaa laga yaabaa inuu ku canaanto ama cabasho uu soo hordhigo ninka la yiraahdo Xi oo uu yiraahdo arrinka in asaas yeeshaan ma ahayn hase yeeshee sheekada qaybteeda ugu xiisaha badan ayaa waxay tahay Iran iyo Shiinaha waa laba dal oo isku tiirsan markay ganacsiga fiiriso Iran waxay soo saartaa shidaalka noociisa ugu wanaagsan crude-ka loo yaqaan 90% waxay u dhoofisaa Shiinaha xitaa ma Ruush xitaa ma Hindiya Shiinaha ayaa ah dalka koowaad ee shidaalka ummadda Soomaaliyeed waa Google gareyn karaan rabaan
shiinaha ayaa ah dalka koowaad ee ganacsiga dhanka muxuu ahaa maadooyinkan shidaalka iyo maadooyinka lagu buufiyo beera maadaama shiinaasku uu leeyahay beera aad u tiro badan marka shiinaha waxay dan ugu jirtaa in Iiraan ay noqoto awoodda ka soo baxdo dhulkaas ee meesha gacanta ku hayso aniga ilama aha xaadirkan in shiinaha uu ka baqaayo Iiraan awood ahaan in dhulkaas ay isku ballaariso ma ilama aha waxaad tusaale kaaga filinaa rabaa dadka inaa xasuusiyo Afghanistan sida ognahay waatuu Maraykan galay askar badan oo ka dhimatay rafaad sanado badan kadib Maraykankii ku kaliftay inuu iska soo baxo markuu Maraykan saqdi dhexsida u soo baxay isbuucii xigay waxaa aragnay wafuud Shiinees oo Kabul ka degay maadaama Afghanistan iyo Shiine ay xuduud leeyihiin marka Shiineeska waa nin yaqaano sida loola macaamilo dadkan Maraykanku ugu yeero dad asal muxuu ahaa mayal adag islaamiyiin ah inta ka dhacday luuqadaha Maraykanku isticmaalo luuqad ka duwan iyo farsamo ka duwan ay Shiineesku aad u isticmaalaan marka maanta meesha ay taagan tahay dabcan Trump wuxuu u muuqataa in uu ka dalban doono Xi in Iiraan ay furto dariiqaas oo ay dib u boodo dhulkeeda dib isaga laabato oo Hormuz lagu soo celiyo sida ay ahayd dagaalkii ka hor oo Iiraan military ahaan meesha looga saaro oo dhulka uu furmo Trump intaas wuxuu ka dhex arki doonaa wax guul ah Shiineeskase muxuu ka oran doonaa su'aasha ugu muhiimsan meesha taagan waaye oo cadaadiskan Trump uu saari doono Xi ma laga yaabaa in Xi uu telefoon u diray Iiraan uu dhaho Trump aniga la hadlay waxaan xabajoojin dhanka Hormuz ah aan gaarno taas ayaa ku kalifi doonta Donald Trump inuu dagaalka gebigeeda iskaga baxo waa Iiraan dhulkaas hadii ayadana iskaga baxdo taas Iiraan ma yeeli doontaa Shiina ma yeeli doonaa intaas waa maanta waxaan hortaagan waxaa jiray maanta markii uu diyaaradda Trump ay wadday meesha ka degtay Air Force One waliba xilligii cagaha ay dhulka dhigtay waxaad mooday dowladda Iiraan si istiraatiiji ah u diyaarsanayd isla markiiba waxay soo saartay warbixin ay ku leedahay wada hadalka ma gali doono Maraykanka la rabo sababtana waxay tahay ilaa 5 arrin naloo fuliyo ay kamid tahay in magdhow la bixiyo in marinka Hormuz ina maamulna naloo ogolaado nuclear-kan iyo gantaalaheena ina laga hadli karin qodobo waaweyn miiska keenan ma la dhihi karaa Shiinaha naftirkiisa Iiraan oo ka hadal siinaya ka hor inta aanu Trump miiska qodobo adag saarano ciyaarta waa la isla sii fahmay xilli hore والله عجيب وعقلوا كاجد برن إيران نكي أضيع وزير كلمة ديود عباس أراجي أي أو سفري نيو دلهي هندية أصدقوا كقيب جلايو كلن كوزير كلمة ديود بريكس برامج كبريكس كله يقانو أو أي أساسين شينا يروش أي هربودين أو هذا وده ما بدنا يخصو بيران وجديد هو إن برامج كاس بريكس كنا ويهي كارتجا مراكن كيلعكتيس يسامين السياسات الميليتري يدقالة dunida uu ku leeyahay marka wixii dana isku soo beegmay marka waxay u muuqataa dabcan siyaasadda Maraykanku ciyaari jiray oo dhol cadeynta iyo hoos inuu midida ka wato in Shiinihii ay la ciyaarayso hadalkan marka ka soo yeeray Iiraan Iiraan markay hadlayso bogta waxay ogtahay in shucuubta Maraykanka ama siyaasiyiinta Maraykanka ay dhigeystaan waaya halka markay marayso Iiraan ana waxay ila tahay qaab waxay ciyaaraysaa siyaasad cajiib ah oo ah in aysan afkeeda ka soo bixin in ayada ay ka amar qaadato Shiine ama Ruush inta badan markay hadlaan waxay yiraahdaan xiriir fiican naga dhaxeeyo laakiin qadiyadeena iyo dhulkeena iyo adduunkeena Hormuzkaas ku daradaarto anaga u madax banaan oo wixii go'aan anaga ka gaarno ayaan dabcan samaysanayna hadalka maanta ka soo baxayne inta hadda adiga akhrisaa Dasiiso oo ahay in Iiraan ay leedahay anaga qodobadaas wadana إلا لقيه شيء إلا وحي أنا قاعد صوب دقني مريكان أما ترامب وقاطع هذا مالنا ومصر أنه تازو حكومة جنسا إن أي دنيا تصايان إن عدان أيسن عندنا كأمر قاضن خوش هذا يقديد هذا وحلا لي وحدة القوة كتابسن أنا أيها كتلسكو أي ليهين مركا أنا واحد لا سياسة عجيبة عيارين أيقون عندنا دقيسنين waxyaabo kale oo la yaab kale waxa kamid ah in hadda la eegayo Trump hadii uu ka soo laabtay Beijing
bal tilaabada uu qaado maalmihii la soo dhaafane cabdifatah wakiil ahaa Iiraan iyo Mareykanku ma wada qosli doonaan oo Iiraan caalamka kuma ciyaari doonto mar kale Iiraanna waxay hore u tiri marinka Hormuz juqraafi ahaan markii hore aan dayacnay gudi oo magacaabeen waxay hadda leeyihiin dhaqaale fara badan ama ka sameynayna intaan xayiranahay oo Mareykanka il dhaqaalo oo naga maqnayd oo istiraatiijiyada wadankaasiba waaba la bedelo xagga juqraafiga ahayd hadda marka Trump ma dagaal u aadi doonaa ma gorgortankiisa wuxuu ku salayn doonaa marinkan Hormuz ma gantaalaha Iiraan diiradda la saari doonaa ma si uraniumka iyo nuclearka ayay noqon doontaa waxa ugu weyn Trump hor yaalla dhowr kala doorasho meesha yaalla waa inuu mid ka tanaasulo taa Mareykanku waa adag waaya horta waxa Mareykan u adag boqolkiiba adag in ciidamada lug ah Iiraan uu geliyo wuu og yahay taas in ay noqon doonto mid ugu dambeysay ee Trump iyo militariga Mareykanka iyo dhibaato fara badan oo aysan weligood ka soo kabanaynin inay keeni doonto taas waa ognahay Soomaa miiska saaranta waaya duqeen cirka ah waa optionada Trump loo soo bandhigay intuusan Shiinaha aadin duqeen cirka ah oo tii la mid ah goobo cayiman oo satellite-dooda ay leeyihiin wambasaasna dhulkaas ku jiraan gantaaladii intay ku jiraan in dib loo soo celiyo duqeymahaas dhibka jira ayaa wuxuu yahay Iiraan hadii duqeymihii ama sidii hawshu ahayd dagaalkii cirka dhanka cirka la iska weeraraya dib loo soo celiyo hadda waxa meesha ku baaba'ay wadamada khaliijka ahaa dekadihii shidaalkii oo hadda taan bay u muuqato maalmihii in Imaaraadka Carabta waa maqashaa tusaale ahaan lacagtii ka sii dhamaanayso maalgelintii dadka safarkii eelboorada xiran wixii oo dhan waaya taa waa option aad u adag waaye oo Trump uma muuqato in guul uu ka keeni karo duqeyn dhanka cirka ah oo Iiraan inay jilbaheeda lagu soo dhigto ay dhahdo waaya hadda wada hadal diyaar u ah taa waa lagu kari waay Soomaa optionada kale ee furan oo inta badan hadda khubarada ay ka hadlayaan waxay tahay in Mareykan iyo Israa'iil iyo qoladan khaliijka inta ayaga taageersan oo is wadato in laba ka mid ah ama mid ka mid ahba jasiiradaha ugu muhiimsan ee dhanka shidaalka Iiraan ay ka dhoofsato in si xoog ah loo wareego oo ciidamo lugta la geliyo taasoo ku noqon doonto cunaqabateyn buuxdo oo la saaray Iiraan iyo ilaheeda dhaqaale iyo dhulkeedaba in qayb ka mid ah la qabsado taas waxaa loo arkaa guul fara badan xitaa markaa fiiriso generaaladii hore ee Mareykanka ee telefishinada soo fariista habeen walba ee hadlo in ay u maleeyaan optionkaas inuu yahay midka kaliya ee Donald Trump hadartan u furan oo la dhihi karo wuxuu guul ka gaaray waa dhul ka mid ah Iiraan in la qabsado guulu ka gaaray yani la isdhihi karo asagana haddii saas ay ku dhamaato oo jasiirad uu ka qabsado oo Iiraan duqeymihii iyo wixii ay sii wado laakiin lagu kala caajiso sanadaha soo socdo intaas asaga guuli u tahay waaya taa taa midda kale ee furna waxay tahay Trump inuu meesha iskaga yaaco iskaga tago gabaanteeda ka farxasho taasna waxay xiiso u leedahay Cabdicasiisow dabcan Mareykanka weli wuxuu saldhigyo iyo contracts uu la saxiixday wadamada khaliijka ah Sacuudiga tusaale iyo Kuwait iyo dhulkaas ballaaran ee shidaalka uu ka buuxo ilaa had saldhigyadiisii way ku yaalaan maadaama ciidamada badankooda laga soo gooy waaya marka wuxuu muuqataa Trump in dhabarkiisa darbiga uu aadan yahay oo ay adag tahay sida uu uga bixi lahaa marka waxaan isleeyahay dabcan safarkiisa Shiinaha in uu raadinayo halkaas oo u muuqdo in Trump uu meesha guul ka gaaray xitaa haddii ay kusoo idlaato in Iiraan ay marinka Hormuz kaga baxdo ay dib u laabato arrimaha nuclearka iyo maadooyinka laga bacrimiyo dabcan hadda wararka soo ifbaxayo shalay ilaa xalay waa aragnaa oo la leeyahay waxeedii weli sidii u yaalaan Iiraan waa 60% waaye 60% bacriminta waxaa kaliya uga dhiman 30 oo waa hal talaabo u dhiman 60% markay marayso 90% ay gaarto 90% dalkaas wuxuu si buuxda u haystaa hubka nuclearka ah marka waxay u muuqataa dabcan in waqtigii uu kasii dhamaanayo ninka la yiraahdo Donald Trump iyo Netanyahu oo ficil inay qaadaan ay ku qasban yihiin marka ma option kale ma miiska u saaran oo ah in dhulka ay uga shaksan yihiin in maadooyinka laga bacrimiyo nuclearka xoog lagu tago la dego oo maadooyinka lala soo baxo taana waxay ila tahay aniga midaan suuragal ahayn waa aragnay labada askari Mareykanka iyo silic loo maray in buuraha laga soo dhex saaro marka cagta in la dhigo
iiraan waxay u muuqataa in iiraan ay aad ugu diyaargarowday marka waa sheeko aad iyo aad u cakiran waaye meesha oo ku dambeyn doonto labada dal iyo ninkan Trump wuxuu ka sameeyay dabcan waa arki doonaa laakiin optionada u furan waa kulligooda kuwa aad u adag dambeyntii marka Mareykanka culayskaas oo ku dhex jira Shiinaha hadda waxaad moodaa in si la yaab leh uga faa'iideysanaya xiisadda gobolka bariga dhexe Iiraan quwadeedii iyo tabarteedii soo laabanaysa yaa guuleysan doona markaad fiiriso sidan haddii wax ku sii socdaan والله ولكن قاعد عسورته waxaa muhiim ah in isla hada Pakistan waa dalka kaliya aagaas ee uu nuclear cast Soomaa markii Israel taani laga soo tago Pakistan waxaa muhiim ah in isla ogaano Mareykan wuxuu kamid ahaa wadamadii aad u diidanaa Pakistan inay nuclear hesho Shiinaha se maanta wuxuu saaxiib gaar ah leeyahay dalka Pakistan Shiinaha marka asaga wuxuu u arkaa dalal fara badan oo aaga ka soo baxo uu asaga caawiyo military ahaan iyo technology ahaan oo hubka nuclear ka sameesto in asaga guul ee u tahay ayuu arkaa North Korea aragnay tusaale ahaan Mareykan cadaadis fara badan uu saaray oo maanta hubka nuclear ka haysto waxaana ka caawiyay 100% Shiinaha wataa wada ognahay xitaa dagaalkii South Korea iyo North Korea Mareykan iyo Shiina markii ugu horeysay ciidamada Mareykan iyo Shiina ciidamada Mareykan iyo ciidamada Shiinaha ee iska hor imaadaan waa 1990 dagaalkii labada Korea taasoo ku dambeysay in South Korea Mareykan uu dago in North Korea Shiina ay degto oo North Korea ugu dambeyn hubka nuclear ay samaysato South Korea Mareykanka uu degan yahayna aysan samaysanin Iiraan aniga sansaan nooca oo kale ay iga muuqato in Shiinaha uu arko dan asaga ugu jirto in dalkan qaniga ah oo dhaqaalaha badan muslim ahaan markii la fiirinayo dabcan Pakistan waa dal muslim ah in hubka nuclear ay samaystaan oo ay saas iskaga baaciyaan ninka Mareykanka iyo xulufadan kale ee aad u diidan hubka nuclear-ka sida Pakistan oo kale Pakistan waa taa aragtay markay nuclear ka sameystaan Mareykanka uu soo kala firiyay oo xiriir fara badan inuu la sameysto saaxiib la noqdo dabcan waa aragnaa marka ani waxay ila tahay Iiraan inta way og tahay Iiraanna waxay isleedahay danta kaliya maanta ka fujin karto Mareykan iyo Israa'iil ma ahan inay dib u degto ma ahan inay tanaasusho waa inay hor u sii socotaa hawsha ku sii adkaysaa ilaa hubka nuclear-ka ka sameysto marka ayagana si dardar ah ay hawshooda u wataan maalinka ay ku dhawaaqaan in hubkooda nuclear-ka bamka koowaad ay sameystaan Mareykan iyo Israa'iil dib ay u degi doonaan taasoo iska caddahay waxaa noo muujinaya taariikhdii hore ee soo marnay Shiinana waxay ila tahay in taa uu dantiisa ka dhex arko dhulkan dhul xasiloon dad asaga uu saaxiib leeyahay uu caawiyay oo ka amar qaato oo hub nuclear ku hubeysan in dhulka ay ka soo shaabaxaan marka waa xaalad aad u culus waaye ma aqaan Mareykanka wuxuu ku sameyn doono cabdi iftinaada u maasan tahay runtii si aqoon badan ka muuqato oo ogaal badan uu ku jira ayaad u taxliilisay xaaladan dunida iyo gobolka bariga dhexe isaga xiran sharafayno tahay inaad mar kale barnaamijkan xasaasiga nala joogto caawa haddii aan bahda Barrow Show aad baa u maasantiin kal ilab qeyrta nala socota idinkana soo dhawaada haddii aad inta nala joogteen ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara oo maasantiin